Dadka dhigaya mudaharaadyada ismaamulka Hong Kong ayaa sheegay inay dibadbaxyadooda sii wadi doonaan tan iyo inta uu iscasilayo hogaamiyaha jasiiradaasi. Carrie Lam ayaa shalay sheegay in la hakiyay sharci muran badan abuuray oo Hong Kong u ogolaanayay in dalweynaha Shiinaha ay u gudbiso dadka looga shakiyo in halkaasi dambiye ay ka galeen. Dibadbaxyada looga soo horjeedo sharcigaasi waxa uu bilowday toddobaadkii tagay iyadoo tan iyo waqtigaasi ay dhowr isku dhac dhex maray booliska iyo dibadbaxayaasha oo gacanta gumeystihii hore ee Ingiriiska ku jirtay ayaa maamulka Shiinaha dib ugu soo laabatay sanadkii 1997 iyadoo dibadbaxayaasha halkaasi ka dhacay loo qoonsaday kuwii ugu xooganaa tan iyo waqtigaasi ka dhici jiray jasiiradda Hong Kong. Horjoogayaasha dibadbaxayaasha ayaa sheegay in maanta oo Axad ay dhici doonaan dibadbaxyo kale oo xoogan kuwaas oo lagu dalbanayo in xilka uu ka dago hogaamiyaha Hong Kong Carrie Lam ninka lagu magacaabo.